haddii tusaale ahaan 10 kun oo doolar lagugu leeyahay haddaad 2 kun bixiso 8 kun muddaad qabsanaysaa muddadaasaad ku bixinaysaa lacagta taasi xarig kama dhasho badana haddii uu qofku macadiiday inuu wax bixiyo hantidiisa gaarkaaba la xaraashaa taasi halkaasay martaa tan kale ciqaabta waxa weeye inuu u baadhayno dadkan muddada dheer xidhnaanaya horta sharci kuma xidhna xal bay ku xidhan yihiin waayo qofku markuu ciqaabtii dembiga uu galay laga jaro xuquuqda madani waxay qofka inta la sii daayo in maxkamadda sidii dacwadda madaniga loo furinayo fulintaaba in loo furto oo dabeedna saa hantida looga qaaday ahayd laakiin badanaa waxaa la yidhaahdaa qofka iska bixiya lacagta yaan la sii daynin marka inagu tan baynu baydhaynaa ah qofku tan ciqaabtaa baynu baydhaynaa badanka loo xidhan yahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال الضوء المركز كسرنتين ومركلي برنامج كلهم كورفينتا. أجعل برنامج كائن نكو إنه أهلنا اليوم مهمة والله اللي ده الحاجة شرعية. واحد جلد الله حرود دين يوم مج أو مدحب سيدا سمال لا كوشيرة تدخاسي وحصل على سوق طلبات كيس والله وقف اللوج بالمدي وحبسيدا لقص وصاري بدأ الضغط مرة وصدح سنة حبنايت والعشرة إلى 20 كون جالسوا دين الله حري كذي مركي بحين كل ويدا العكاس كون قاضي الشيء بيكون حموسطي وحكروا شيء سوونا إن اللي يراهدو كمان نورة محمد علي مركا لوضع كيس با وحكسوا حكتي وهاوش أو هاو قلي تلفزيون MMTV مركا برنامج كانوا هرب وقاعد يجينا وحكروا شيء إن سوونا دوام سجن اللي يسوي دايح سلك حبسي قاعد يحل مقالة هربيسة وسجال سنة حدنا وسوونا مقبو حدنا العق جالس عشان يلا 20 دولار لكن مركز دمشق بدش يستير 20 دولار نقطي المقعيس هو عبد محمود برسامة سجن بحسوا ده يستير في شيكها ومدحوا هاي محمد عبد الشيخ إليك إلى آخر سيو البرنامج هو حمرتكوا أحمد ضرب إسماعيل وما قاعد حلق أحمد وحو كسو شقيي محكمة سومالان وصول نقضي كرصورة أرنتا مكحض لنا حق في عمه كهيا وواقع شرعي قبل الله حريدا وعندنا نسيب دول تاجنو دادك الدين الله حرو الدين تسكب بحين كرواية محيد دادك حقوق لي القفر دي سوى تاجو الدين تما بحين كرو ما الحبس يولا حرو حبس عقابات لما ريوم با بيسوي واحد شيء حلال كلا وقف كسبلوك هذيك سولو هلا إمتى هلا القبلابين وحكوش شقية إمتى والله تلية شرعي محكمة كمان بدنا مركا وننا قوم في عشر جولة سولو مركا إحنا وصفي عن وصفي عن وندوه هي آد بعض ما تصنت هاي عبد الشكور محمد هير سراء آد بعض ما تصنت هاي وندوه هي برنامج كنا برنامج آد وفي عن وصول وين هي وحوي bulshaduna inay fahanto dadka cilmiga waxaan u leeyahay dadka ay u sheegan waa muhiim waayo marka maanka korayo wixii baa la isla garanaya waa taa walaal horta dadka waxa aanu ku horeynayaa dhammaan waan salaamaya dadkeena daawan doona salaanta islaamka ku salaamaya assalaamu calaykum talabaad waa ramadaan kariim ayaan leeyahay dadka meel kasta joogtaan muslimiinta gaar ahaan Soomaalida gaar ahaan reer Somaliland aad baan iyaga u salaamaya adigana waad mahadsantahay walaal barnaamijkan dadka loo xiro deymaha dadka deyn looma xiro horta marka hore badana dadka deyn looma xiro waxay ka dhashaan xukunna ciqaabe ka dhashaan xuquuq madani baa ka dhalata hadii jeeraale qof baa gaari wata cid buu jiirayaa cidda markuu jiiro dee mag baa ka dhalanaysa iyo taxadar darradii marka waxa weeye marka qofka ciqaabna way ku dhacaysaa dawladeed oo ciqaab qodob baa ku dhacaysa xuquuqda madani way daba taallaa ee qofka inta suuqun laga soo qabtay deyn looma xidho oo dabeedna 10 sano jeel laguma jiro ee badanaa dadkan la xidhaa waa dadka hadiya jeeraale falalka ciqaabeed gala kaasay daba taallaa xuquuqda madani tusaalahaan qofku markuu cid jiiro mag baa ka dhalanaysa magtii cid ka bixisa hadduu waayo amba dalkaba aanu dhalan oo ajnabi yahay wuu xidhnaanayaa xuquuqda madani waa la daba dhigaa waaranka talabaad qof baaba hanti loo dhiibay dukaan baa loo dhiibay meherad baa loo dhiibay hanti buu maamulayay hantidaas hadday lunto oo ammaana lunsi ku dhaco markaasaa ciqaabna lagu xukumaa
xuquuq madani lagu xukumaa marka dadku inay fahmaan qof lacag ku leh ma soo xidhown taa waxa loo maraa qaab madaniya loo maraayo dacwad madaniya loo maraayo ciqaab maaha oo qofku intuu maxkamadda dacwad ka furto ayuu maxkamadda dacwadda cashuurtaa fulin baa loo diraa hantidiisaa la eegaa hantidiisa hadduu hanti haysto markaa hantidaa laga jaraa haddii kale muddaa loo qabtaa wax ku helayo taasi waxay martaa qaabka madaniga laakiin tan ciqaabta oo sida qodobka 496 baabul khiyaamo qodobka 502 amaana lunsi qodobka 446 oo dhaawaca oo shila qodobka 440 oo dhaawaca isna paragraph 2 paragraph 1 qodobadaas xuquuqda madani ka dhalata horta marka waa in la fahmaa taas waxa weeye marka ciqaabtu ka dhamaato ayaa xuquuqda madani la daba dhigaa horta intaasaan sharaxa ka horreysiinaya si fiican baad runtii u sharaxday marka uu qofka marka way kala qaadaynaa مثلا قفك أي هانتي كلهم إلا عن كلهم تو محن نقول يا سيد حربي سبل سلوك الدوية وين كلا قاضينا يو قاب كمدني أو مصر عنو قاب كمدني هو سك السعودية دتك ديمي سكوي عشان فربضان دتك ديمي على لقيه عشان مجال ذوي كبوا حنا لما حدا يجع قفك النوطاي على كلا قرطها نوطاي دو محكمة دقيقة وعشورتها والله يرى الدين تسأل يقول ما قبتها ها أبو هذا iska bixi baa la yidhaa haddii tusaalahaan 10 kun oo doolar lagugu leeyahay haddaad 2 kun bixiso 8 kun muddaad qabsanaysaa muddadaasaad ku bixinaysaa lacagta taasi xarig kama dhasho badana haddii uu qofku macadiido inuu wax bixiyo hantidiisa gaarkaa baa la xaraashaa taasi halkaasay martaa tan kale ciqaabta waxa weeye inuu u baadhayno dadkan muddada dheer xidhnaanaya horta sharci kuma xidhna xal bay ku xidhan yihiin waayo qofku markuu ciqaabtii dembiga uu galay laga jaro xuquuqda madani waxay qofka inta la sii daayo in maxkamadda sidii dacwadda madaniga loo furinayo fulintaaba in loo furto oo dabeedna saa hantida looga qaaday ahayd laakiin badanaa waxa la yidhaahdaa qofka iska bixi lacagta yaan la sii dayn marka inagu tan baynu baydhaynaa ah qofku tan ciqaabtaa baynu baydhaynaa badanka loo xidhan yahay ee gabadhaa hore la sii daayay ay ka midka yihiin taasaynu baydhaynaa taasaynu sharaxaynaa waad mahadsantahay hala haddaynu leexanno dabcan saad sheegto dhinaca ciqaabtaynu soconnaa halkaa aad ku aroorisay ahminka inta badan qofku markuu ka dhammaado ciqaabtii ku dhacday inuu xal ku sii xidhan yahay marka qofku xuquuq buu leeyahay marka xuquuqdiisa xaggee loo raacaya iyadoo hadhowtona deyntii laga rabanaya mid laga daynaya waa si fiican waxa weeyaan sharciyan marka la eegayo qofka laba xukun baa ku dhacay marka sharciyan la eegayo sharciga loo raacay laba xukun baa ku dhacay ka koobaad waa ciqaabtii dembigii uu galay tusaale ahaan qof buu bur qaaday gacan buu ka jabiyey bur qaadista iyo gacan ka jabintaasi ciqaab baa u taalo tusaale ahaan waa 2 sano labadii sano ee falkaa uu galay ee axmaqnimada ah waa laga jaray gacantii jabtay magteedii oo 10 halaada ama 25 halaada tusaale ahaan ayuu xidhaanaya qofkii ta qaladkii waa taa waa in qofkii la soo daayo dibadda uu yimaado dacwaddii lagu furto xukunka qaybtii ciqaabtayd ma way dhamaatay qaybta madaniga in la furto oo maxkamadda la geeyo cashuur laga bixiyo oo qofkii sida qofka deynta lagu leeyahay loo dacweyn jiro loo dacweeyo weeyaan laakiin had iyo jeer jeelasha lagu sii hayaa iyadoo la isleeyahay hadduu qofka soo baxo iyadoo la isleeyahay waxa loo xabta xal baa loo hayaa oo waxa weeye qodobkan xuquuqda madani haddii uu leeyahay sharaxaad dheeraad hadduu leeyahay oo xeerar loo hayo waxa la oran lahaa qofku markuu sanad xidhnaado lacagtii intaas ka godaa la oran lahaa ka guimayso waan ta taagnaanaysa uun marka tayn ku hadlayna waa taa sharci cadow sheegayo la leeyahay qofku intuu deynta bixinayo weligii aan la hayo oo qoran ma jirto ee waxa la isleeyahay markuu soo baxo dibadda uu soo baxo dadkii xaqa ku lahaa amba uu dhaawacay amba uu dilay ayaa amni darra ka dhalan doontaa la dili doonaa isagana waa taa marka qofkaasi sharci kuma xidhna ee xal buu ku xidhan yahay exactly waayo eg hadduu ku xidhan yahay sharci tusaalaan qof baa 10 kun lagu lahaa 10 sano xidhnaa dawladdu markay imika xadhigga kaa iibinayso ee maxkamadda xadhigga aad ka iibsanayso xadhiggu qiimuu leeyahay maalintii haddii imika sanad aad iibsanayso tusaale ahaan waa 7 kun oo shilin amba 14 kun waa $2 adigu maximum $2 maalintii aan ku qiimayno sanadkii waa 360 cisho
saddex boqol iyo lixdan lagu dhuftay $2 $720 buu beeriyeer qofku ku iibsan karaa sanad xariga marka qofka sanad lagu xukumo 1 year marka lagu xukumo on dacwadaha ciqaabta waaweyn ahayn dacwadaha eri dambiyada eri gafafka ah sanadka $720 baad bixinaysaa lacag u dhiganta qofkan 10 sano xidhnaa haddii ay sharci tahay maxay 7,200 lagu goy weyday oo qofkii loona waayay war maalin kasta $2 baa ka go'ay deyntii lagu lahaa taasina ma dhacda dee marka xeer u gaaro maamula ma jiro oo loo raaco waayo qofkan ugu yaraan waxa laga xidhay dhaqdhaqaaqii baa laga xidhay inuu shaqaystaa laga xidhay inuu deyntii iska bixiyo suuq galaba laga xidhay maadaama qofkii loo xidhay waxay ahayd inuu xadhigii qiimihii uu ku qiimaysnaa ka go'aabeed maalin kasta taasi markaa ma dhacdo waa xal in la sii daayo weeyaan in qofkaasi dibadda isagoo jooga iska bixiyo lacagtii weeyaan marka qofkaas hadduu siraada dacwood yuu u raacaya cadaalad darradaa ku dhacday oo tusaale kale 5 sano ama 6 sano ama 10 sano oo iska xidhnaa oo dee noloshiisa uu wax la soo bixi lahaa walaal waa runta waa su'aal aad u fiican horta xuquuqda cidda u raacaya intaynaan gaadhin dadku markay isqabsadaan ee wax isku yeeshaan xeer baa maamula waxaa loo baahan yahay horta in marka hore la sameeyo waxaan muddo dheer bay soo jirtay in xeer la sameeyo horta kala haga xuquuqaha madani qofka ciqaabtu markay ka dhammaato waa in xuquuqda madani aanu sii xidhnaanine amba ciddii uu ka dhashay inta dacwadda lagu furo hantidii laga qaado ilaan maga oo kale imaka dadku dacaymis bay ku wada jiraan magaha qofka aan la garanaynin markuu dalka soo galo intaanu gaari kaxaynba waa in isna caymis la geliyo waa wixii waxaan keenayay saan qofkan kale u xaq beelin qofka wax kule laftiisa aanu xaq beelin waa in wixii waxaan keenay horta marka hore lala dagaalamo la joojiyo ta labaad waa in la sameeyo xeer hagaya xeerka waxa ku qoranuun qofka waa loo raacinayaa ciqaabta xuquuqda madani ayaa ku qoran faahfaahin kale ma jirto marka waa in xeerkii la faahfaahiyo oo la caddeeyo oo la yidhaahdo qofkaasi haddii uu wax waayo qofka deynta kule hadduu xadhig kaga goosanayo beerdheyl intaasaa kaga go'aysa waa in la yidhaahdo marka walaal cabdishakuurow intaanu qofka dacwoonba isagu kuwa laftooda muddada dheer xidhnaadee ee la sii daayo amba cid soo wanjasho amba dembi lagu waayo laftoodu marka la sii daayo aayarunba iska baxaane meelaha xuquuqna uma soo dacwoodaan xuquuqna ma soo doontaan marka kuwana waa la mid xuquuqna ma soo doontaan xuquuqna ma dacwoodaan halkay u raaci lahayn iyo habkay u raaci lahayn iyo xeerkay u raaci lahaayeenna mid qorano yaalla maaha marka qofku inuu iska dhaqaaqo wax uu isticmaalo iyo xeer uu raaco iyo waddo uu mara ma diyaarsana wallaahi walaal ma diyaarsan eeg dadka dee wax walba runtaa laga sheegaa horta waa dhacdo imika maca kuwa u xidhan waa in la sii daayo macal haddii walaal macal kuwa imika u xidhan iyo kuwa loo xidhan yahayba kuwan imika xidhan waxa laga baqayaa dadka qaar waxa loo hayaa oo la isleeyahay qaarna xal baa loo hayaa isleeyahay waaba la isku dhici qaarna waxa loo hayaa markay soo baxaan waabay baxsanba kuwa baxsanaya laftooda waa in damaanad laga dhigo cid garanaysa ay damiinato hanti gaara hadduu leeyahay laga qaado hadduu shaqo ku jiray shaqadiisii inta dib loogu celiyo mushaharku qaadanaya laga jaro waa in meelaha la wada maro oo kuwan xidhan loo taliyo iyo kuwa dambe la xidhi doono labadaba waa in loo taliyo anisa ila tahay haddii ay caddaato axmedow waxaad dee muddaad ka soo shaqeynaysay waqti dee garsoora soo noqotay haddii caddaato qofku inaanu deynta iska bixin karin marka matalis markay ciqaabta ku dhacdo qofka garsooraha maxkamadda ee marka xukunkan qaadaya ee arrintaa ku jira ma qaadi karaa tallaabo ah inuu qofkan hadhow toole recommendation inuu raacin karo qofkaas deynta ma bixin kara hadhow ha loo fududiyo markiiba hala sii daayo hadhow toole siduu deynta isaga raadiyo walaal horta waxa weeye recommendationku qofku garsoor wuxuu qoraaba dee 2 sano ciqaaba lagu xukumay iyo $1,000 xuquuqda madaniya ee ka dhashay ciqaabta sida hadduu ammaano lunsaday amba baabul khiyaamo sameeyo kale ayaa asaasuu garsooruhu qoraa laakiin waxay ku fiican tahay dhinaca qareenka u doodaya dhinacan qofkan la xidhayo ee xuquuqda madani lagu xukumaya inuu isagu doodu yidhaahdo war maxkamadda rafcaanka oo kale ka doodo ama maxkamadda sare ka doodu yidhaahdo war qofkani xuquuqdan madaniya lagu xukumay maba haysto qof damiinana ha keensado ha shaqo tago wixiina iska bixiyo way fududaanaysa markaa waa la sii dayn karayaa dad badan oo saa lagu sii daayana way jiraan maxkamadaha rafcaanada iyo maxkamadaha sare way jiraan barigan ka shaqaynaya meesha imanka inta dambe aad u warguma hayo laakiin marka ka shaqaynayay dad badanna way jireen
وصل وجدي adigoo gaalkaaga kiisasku soo maray oo saameyn lahaa ma xasuun karaysaa wax ma ka sheegi karaysaa ها way badnaayeen waxa weeye maalin kasta ku soo marayaan waxa ku soo maraya waxay soo maray case bay soo maray nin dukaan haysta oo dukaankii yaraa ka kacay soo xiray lagu soo eedeeyay 3,500,000 iyo qodobkii 502 maxkamadda gobolka la keenay waxaan sameeyay qofkii dambigu waa qiraal wuxuu leeyahay aniga 3,500,000 bii dhiibtay waanan qabaa waanan amaanada waa lunsaday mar hadduu qiraal ku yaala garsoore wax kale uma yaalaan waa inuu xukumo marka waxaan sameeyay anigu waanu yeedhay ninkii wax sheeganayay kaalay baan ku yidhi waxaan ku ninkaa dukaankii uu ka kacay sidaa uu sheegayo warkaasi ma jiraa ilaan hubin baa loo baahan yahay garsoor waa inuu dhinaca kale la hubiyo dee mar walba haa wuu jiraa buu ninkaa dukaankii uu ka kacay waxba ma hayo laakiin lacagteedan u baahanahay soo taa ma hubtid haa waa ilaahay baa quraankiisa ku yidhi qofka mar haddaan waxba haynin fanadiratun ilaa maysara aynu muddo qabanno qofka ciqaabtan ay ku xukunno xuquuqda madaxweynaha aynu ka reebno si hadhow tolo markuu baxo uu ku siiyo wuxuu dhumay lacagteedii baan rabaa waxaan soo qaaday waxaan ku lacagtii maxaad iga daynaysaa aniga maxaad iga daynaysaa wuxuu waxaan kaa daynayaa 1,500,000 2 milyan mushaarkayga ka sii ninkiina sanad iyo 2 sano amba sanad iyo bar wixii ku xukumay ma xasuusto waa la xukumay xuquuqdii madaxweynaha waan ka reebay cafiskii baa uu soo raaco uu soo baxay ninkii dhowr bilood kadib suuqu joogaa uu shaqaystaa dukaan kale uu samaystay markuu arkay wuxuu radaa ilaahay khayr ku siiyo waan shaqaystay carruurtaydu waan dabaray 2 milyan ee barigaad ka bixisay abaalkeeda waan ku dhawari sadaqa ay ahayd sadaqa niyeystay marka taas way soo maray kiiska noocaasi haddii qofkaas aan xukumi lahaa 3,500,000 inuu 10 sano xinaana laga yaaba oo cidna ka daba tagteen way garsooraan xukumayaan uu iloobayaa dibna cid uga daba tagi mayso cid wax ka bixinaysaana ma jirto qofku meeshaas ku qurmaya marka badana waan la tacaali jiray badana mid aan u taag waayo oo aan dee faray ka baxan mooyaan waan la tacaali jiray ma waxa muuqataa xilkasnimo inaad samaysay adigoo ah waayo garsooriin markaa tahay ilaahay sokadii adiga awood u leh qofkan xukunka ku dhacaya waayo oo xukunkaasi markaa hadhow tolo qofkaas noloshiisa dee galaafan ama saameyn ku yeelata markaa dhacdooyinka noocaas maxay ku bareen maxaad cashar ka baratay waxaan ka bartay dee wax yaroo mithqaala daratina haddii adoo shaqadu kugu badan tahay qofka intaad soo saarto uun aad dacwadi dhegaysato markuu qiraal noqdana aad tiraa 3 sano iyo 3,500,000 xabsiga geeyo inaad tiraahid oonad waxbaba dhugan dee inaad dadka xabsiga ku gurto ood xorriyaddooda ka qaato xuquuq madaxweynaha aad sii daba dhigto un mooyaane waxba maa tarintee dad badan baa xal lagu dhamayn karaa waxooda intaad xukumin garsooreyaasha waxaan u soo jeedinayaa saaxiibadayda weli shaqeeya xuquuqaha madani intaydan xukumin isku daya dadka inaad dhexdhexaadisaan inaad dhinacii kale ugu yeedho dhinaca kale laftiisa inaad u caqli celiso inaad adigu baadhis samayso laba siyood uma dhacda in qofkan eedaysanihii mar isagoo hantida haysta uu qarsanayo kaa qarsanaya waa in hantiisa laga daba tago dee laga xaraasho qofkan xaqiisa la siiyo kaan qarsanaynay ka bastahay waa inay albaab kasta u garacaan waayo xaq bay u leeyihin awood bay u haystaan inay dhinaca kale wax ka daa ku idhaahdaan inay cid sadaqad la baxaysa u yeedhaan iyo waxa weeye in xuquuqul insaanka kuwan ka shaqeeya faraha badan ay yaacaya yidhahdaan warbar xuquuqdii insaanka yaaci jirteen aad sheegi jirteen kaaloo qofkan bal waxaa loo haystaa $2,000 ka bixiya marka adigu dhexdhexaadsa soo dhaweyso access fara badan buu garsooru helaya weliba dadka maamulka iyo guddoomiyaasha access badan bay helayaan oo dad badan oo muxsiniina jiro inay wax bixiyaan jecel ayaa jira marka inaan lagu duuginuun waxaan ka bartay inaan garsooru isagoo mashquulsan ku duuginuun waxa weeye labada dhinac buu leegaya kana xaq buu leeyahay xaqiisa waa la ilaalinaya kana xuquuq buu leeyahay xidhani kan xidhani xaq uu leeyahay waxa weeye ciqaabtii iyo dembigii uu galay in laga jaro xuquuqdan madaniya 10 sano loo haynayana in laga fiirsado aan lagula degdegin haddii uu hanti leeyo hantidii qarinayana in hantida la soo faqo xama qarsano Soomaalidu soo ogtahay haddii aanu waxba haynina aanu culays la saarin oo culays lagula degdegin ee xulul kala la raadiyo sida ah dad baa sakawaad bixiya bilaano kale imaka in dadka sakada loola hadlo oo la war qofka waan soo baadhnay 5,000 baa lagu leeyahay oo maga shil buu galay cidna dalka uma joogto ilaahay ajar iyo xasanaadka kaas iyo ka soo bixi way helayaan kuwan xuquuq insaanka qodankan hay'adaha xuquuq insaanka waa laga helayaa mar walba qof lagu tacadiyay war bal kaalo kan isaga laftiisa xuquuqdiisa in lagu tacadiyo ma kaalo kana ka bixiya xuquuq insaanka in la yiraahdo
in hay'adan dawladdu hay'ad bay leedahay oo sakada ah wasaaradda diinta iyo awqaafta meelahaas oo dhan loo gargaraaco intaan xadhig lagula degdegin tan kalena inuu xaqiisa laftiisa helo walaalkii oo muslimay haddii hanti ka dhacay waxna aanu haysanayn hawsha fududeeyo wax ka dayn barka dhaafis wada cafin intaba maadaama isagoo ka gacan sarreeyo waxyaaba badan in la isu celceliyo oo sulxiya ayaa muhiima xalka xagga sharciga dadkan xuquuqdooda see u suganto marka in laga tago qofka in xilhaan loo hayo arrintaa runtii fiican uga hadashay sidee bay ku iman karaa xeer dadkan xuquuqdooda suga oo badbaadiya horta waxa weeye waa number 1 aad baad mahadsantahay Cabdi Shakuur waxa weeye wuxuu ku iman karaa horta golaheena wakiilada hadii la ka dhigo waa niman dhalinyaro fara badan oo sharci yaqaaniin ay ku jiraan oo macallin maxkamada ka soo shaqeeyay talada koobaad iyaga soo jeedinaya horta number 1 war walaalayaal xeer kala haga xuquuqaha madani oo ka xaq sheeganaya ka loo sheeganayaba labadaba xaqooda suga si qof $1 loogu leeyahay 10 sano aanu xabsi ugu jirin qof kun lahaana aanu qof 10 sano ugu xidhnaanin talafteeda culaysa labadiiba la ilaaliyo inay xeer horta soo saaraan oo cilada weyn waa xeerkan ciqaabta guud ee 1960 ee wilaayna isticmaalayno ee dawladda Soomaaliya ka dhaxalay waa in xeerka wax ka beddelto lagu sameeyo degdega mar walba oo soo jeediyaan ilaa marka maxkamadda joogay markastoo seminar tago markastoo qolooyinka ay saaragno waxa war xeerka wax ka qabto ka bedela waayo walaal waqtiga laba jaan qaadi maayo waxaan ula jaan qaadin waqtigiisa baaba dhaco de xilligaas dadka lagu maamulayay horta xeerka number 1 in la sameeyo oo la dedejiyo oo soo jeedinaya waa baarlamaanka waxaan soo jeedinaya golaha wakiilada taas waa ta labaad garsoorayaasha laftoodu inay taxadiraan oo waxay dhamayn karayaan xuquuqaha madaniga dhameeyaan oo iyaguna ku jiidin taana waynan oo soo jeedinaya inay noqdaan dad xakiimiin oo maskax badan oo labada dhinac xaqooda ilaaliya waxa kale oo soo jeedinaya dadka sakada bixiya ee muxsiniinta ah hay'adaha islaamiga kuwan kale xuquuq insaanka u dooda ee marka qof la xidho aad u qayliya laftoodu in iyaguna maxkamadaha tagaan dadka waxyaabaha yar loo haysto u kaambeyn gareeyaan iyaga laftoodu taana waan soo jeedinaya waxa kale oo soo jeedinaya ugu dambeyn qofkan hantida leh wax sheeganaya mar hadduu qofkan hubo inaanu wax hanti haynin inaanu isaguna xariga giijin aan cuslaynin ee uu cafiska iyo saamaxada badiyo taana waan soo jeedinaya waxa weeye qoladeenna saxaafadana inay ka sameeyaan doodo kuwan ka ballaaran oo macdinacyadan dacwadan ka shaqeeya hadday garsooryaaltay hadday xiraalintay hadday qareena tahay hadday dadweynaha tahay inta dooda loo qabto la fahmo arrintan la sii jilciyanaya iyadana waan soo jeedinaya intaasaan soo jeedinaya ما شاء الله aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa waa hagaag intaasaan daawada kusoo gabagabeynaa barnaamijka kulanka korfaynta oo marti ku ahaa Axmed Dalmar Ismaaciil oo ku magac dheer Xala Axmed wuxuu hore u soo ahaa gudoomiyihii maxkamadda gobolka Muqdisho isla markaana muddo 10 sano ka soo shaqeynay garsoorka Somaliland dhowrkii sano ugu dambeysay wuxuu ahaa la taliye sharci oo madax bannaan oo arrimaha sharciga ka shaqeeya talooyin aad iyo aad muhiim ah uu soo jeediyay golaha wakiilada iyo dhinaca soo arrintaas kusayso iyo mujtamac iyo dadkaas dadka ay hantiyun ku lumaan ama magtu qofka ay magtiska bixin kari waaya in gacan la siiyo loo gudmado aniga oo Cabdi Shakuur Muuse iyo Axmed waxaan ku dhaafay naatani kulan dambe assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh